waa hagaag daawadayaal halkaad nagala socotaan waa barteena shirwa cumar aad nooga barateen inaan idinku soo gudbinno hadba wixii waray ka soo kordha arrimaha bariga dhexe iyo wixii macluumaad ee caalamka ku saabsan qodobada warka aan maanta ku qaadan doono waxaa ka mid ah weeraro khasaare badan geystay oo qasaam ay ku qaaday askar Israa'iiliyiin ka tirsan ee ku sugnaa deegaanka Khan Yunis ruushka oo duqeeyay saldhigyo ciidan ee Ukraine ku leedahay Kiev sirdoonka koonfur Afrika oo qareen ku qabtay maxkamad dhexdeeda qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin barnaamijka inta ku guda jirno waxaadna nagala socon doontaan barteena shirwa cumar oo aan idigu talagalnay inaan idinku soo gudbino hadba macluumaadka iyo wararka ka soo kordha bariga dhexe iyo caalamka telefishinka Al Jazeera ayaa baahiyay muuqaal gaar ah oo muujinaya dagaalka ay qaaday Kataa'ibul Qassam garabka military ee Hamas kuwaas oo isku dayaya inay askar Israa'iiliyiin ku qabtaan nolosha intii lagu guda jiray weerar ka dhacay bariga Khan Yunis ee koonfurta Gaza muuqaalka ayaa muujinaya dagaal toos oo dhaxmaray dagaalyahanada Al-Qassam iyo ciidamada Israa'iil sida ay Qassam sheegtay waxay isku dayayaan in ay askariga ku qabtaan nolosha balse xaaladda dagaalka ma aysan u suurtagelin sidaa darteed waa la dilay waxaana laga furtay hub uu watay weerarkan waxay Qassam ku sheegtay inuu yahay howlgal ay ugu magac dartay Hajaratu Dawad oo ay ugu jawaabayso weerarada Israa'iil ee ku soo qaaday dhulka Falastiiniyiinta dowladda Ruushka ayaa shaacisay inay duqeymo la beegsatay saldhigyo ay ciidanka Ukraine ay ku leeyihiin magaalada Kiev sida ay warbaahinta Ruushka sheegtay weerarka waxaa loo adeegsaday gantaalada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonka waxaana lagu bartilmaameedsaday goobo ay ciidamada Ukraine kaga sugan yihiin deegaankaasi Ruushka wuxuu sheegay inuu burburiyay saldhig ama xarun ciidanka Ukraine ay ku howlgalayeen Ukraine si buuxda weli ugumaysan jawaabin laakiinse Ukraine ayaa marar hore oo badan sidaan oo kale loo bartilmaameedsaday ama xarumo badan laga duqeeyay mid ka mid ah saraakiisha sirdoonka ee koonfur Afrika ayaa si qarsoodi ah howlgal uga fuliyay gudaha maxkamad ku taala Cape Town halkaasi oo uu ku qabtay nin qarayn ah oo lagu tuhunsanaa ku lug lahaanshaha xog sirdoon ee la musuq maasaqay sargaalkan oo muddo daba socday eedeysanaha ayaa fuliyey xarig degdeg ah xilli ay maxkamadda ka socotay dacwad waxaana taageeray booliska joogay halkaasi warar sirdoon ayaa sheegaya in qaraynka lagu eedeeyey in la xiriiro warqad sirdoon ee lagu musuq maasuqay hay-adaha amniga howlgalkan ayaa cara iyo hadalhayn ka dhalatay gudaha xarunta garsoor iyadoo dad badan su'aalo ka keeneen amniga iyo madax bannaanida qareennada ilaa iyo hadda hay-adaha amniga wax faahfaahin rasmi ah kama bixinin eedeymaha saxda ee kiiskan ayaa muujinaya sida sirdoonka koonfur Afrika uu adeegsanayo xaalad qarsoon si ay uga hortagaan khataraha amni ee laga dareemayo gudaha nidaamka ee sharciga midowga Yurub ayaa doonaya inuu joojiyo xiriirka kala dhaxeeya Israa'iil sababo la xiriir xadgudubyada qaraar ee ka socda Gaza sida uu ku waramayo wargeyska ee Political waxay ku qaadatay midowga Yurub in talaabadan uu ka fakiro muddo 3 sano ah isla go'aankani wuxuu soo baxay xilli la filayay maalmo gudahood in heshiis laga gaaro dagaalka Gaza dhismo ku yaala marinka Gaza ayaa xalay ku dumay 10 askari oo ka tirsan ciidanka Israa'iil waxaana socdo badbaadin la arkayay diyaaradaha qumaatiga u kacay ee goobta meedadka iyo dhaawacyada qaadayay sida ay warisay Al Jazeera iyo warbaahinta Israa'iil dhacdadan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli ay Hamas baahisay xalay muuqaal argagax ku riday Israa'iil iyo taageerayaashooda afhayeenka ciidamada Pakistan General Ahmed Sharif ayaa markii ugu horeysay si cad uga hadlay wararka iyo hadalhaynta ku saabsan suurtagalnimada in Mareykanka iyo Israa'iil ay beegsadaan hubka nukleerka ee Pakistan iyagoo ka duulaya cabsi la xiriirta xaaladda Iiraan jarnaalka ayaa si cad u beeniyay in Pakistan lala jaan qaadi karo dalalka kale sida Iiraan ama Lubnaan isagoona yiri Pakistan waa dal haysta hubka nukleerka mana aha sida Iiraan ama Lubnaan dunidu weligeed maysan arag cid isku dayda inay weerarto dal leh awooddaasi haddii ay weeraro noocaas oo kale ay isku dayaan natiijada ka dhalan doonta waxay noqon doontaa mid naxdin leh xitaa aan la qaadan karin hadalkan wuxuu muujinayaa fariin cad oo ku socota cid kasta oo isku dayda inay halis geliso madax bannaanida iyo awoodda military ee Pakistan waxay si cad u sheegtay in aysan aqbali doonin wax weerar ah ama lagu beegsado awooddeeda nukleerka isla markaana ay si cad uga jawaabi doonto isku day kasta oo noocaasi ah digniinta waxay ku imaanaysaa xilli xiisadda gobolka bariga dhexe ay sii kordhayso iyagoona xogaga caalamiga ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa nukleerka ee dalalka Islaamka
ururka PKK ee Kurdistaanka oo tan iyo 1978 dagaal hubeysan kula jiray dowladda Turkiga iyagoo u doodaya xuquuqda dadka Kurdistaanka ayaa maanta si rasmi ah hubka u dhigay. munaasabad arrintan lagu shaacinaya ayaa ka dhacday magaalada Sulmaaniya ee ku taala gobolka Kurdistaan ee Ciraaq, halkaas oo saraakiisha PKK ay si cad u gubeen hubkoodii, taas oo calaamad u ah dhammaadka dagaalkii ay kula jireen Turkiga. hoggaanka PKK ayaa sheegay in go'aankani uu yahay natiijada wadahadal ee qarsoodiga ah oo ay la yeesheen dowladda Turkiga, gaar ahaan maamulka madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan. Turkiga wuxuu arrintaani u arkaa guul weyn taariikhi ah oo meesha ka saaraysa khatarta muddada dheer halista ugu jirtay amniga guud ee gaar ahaan gobolada Kurdiska ee bariga Turkiga. hubka dhigista PKK waxay calaamad u tahay isbeddelka siyaasadeed ee weyn ee ka dhacay gobolka, iyadoo rajo laga qabo inay horseedi karto nabad iyo isfaham dheeraad ah ee dadka Kurdiga iyo dowladda Turkiga. hogaamiyaha Xuutiyiinta ee Cabdimaalik al-Xuuti ayaa fariin digniin ah u diray shirkadaha iyo maraakiibta caalamiga ah ee isku dayaya inay jebiyaan xeendaabka ay Xuutiyiinta saareen maraakiibta u socda Israa'iil. hadalka rasmiga ee ka soo baxay Cabdimaalik al-Xuuti ayaa ah mid ku fillaatay waxaad aragteen, ma ogolaanayna cid kasta inay hamiso inay badeeco u geyso Israa'iil. ereyga midinku fillaatay wuxuu tixraacayaa dhacdooyinka dhowaan ka dhacay halkaas oo Xuutiyiinta ku weerareen 2 markab oo ku wajahnaa Israa'iil 48 saac gudahood. maraakiibtaas oo lagu eedeeyey inay ka dhaga adeegeen amarada Xuutiyiinta ee ahaa inaan la adeegsan karin marinbiyeedka badda cas. fariinta cusub ayaa waxay muujinaysaa inay Xuutiyiinta sii wadi doonaan ololahooda militari ee ka dhanka ah maraakiibta la xiriira Israa'iil, taasi oo khatar gelin karta ganacsiga caalamiga ee marinbiyoodka muhiimka ee gobolka. waxaa jira cabsi laga qabo dagaalka badda cas uu ku sii fido haddii aan xal siyaasadeed loo helin dagaalka iyo gantaalada ay Xuutiyiinta ku garaacayaan